الرحمن الرحيم كلانتي وعن أو ونكسن داوديال كوني سو دواده برنامج gaar oo maanta ku wareysan doono abwaan Cabdi Salaad Qaari oo abwaaniinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waan ku soo dhawow barnaamijka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا هرتا dadkii hore iyaan ahay fankana maraan dhaween baan ku soo biiray oo 49 sano laga jooga markaan ku soo biiray intiqaad ahaan maanta ujeedadan leeyahay waxa weeye 22 sano iyo 1 sano waxaan raadinayay dalkan dadkii lahaa marka hore arintaas aan rabaa inaan qadimo kadibna ujeedada aan leeyahay rabaa inaan sheego abwaana waa mahadsan tahay sidaan ognahay wadankan 20 sano dagaal iyo dhibaato ka jirtay 20 sanana dadkii Soomaaliya abwaaniintii Soomaaliyeed ee ku sugnaa wadanka way kala maqnaayeen 20 sano ee wadanka miyaad joogtay mas'uud ka maqnay waa joogay 20 sano hameenka waan bixin dalkan joogay 20 sano ma jiraan wax maaragtay gabayo aad soo bandhigtay ama aad qortay ku saabsan xaaladda ka jirta wadanka Soomaaliya waa jiraan heesa la qabtay iyo gabayo intuba waa jiraan waxay ka baxaan raadiyo Muqdisho iyo raadiyaasha kale heesa aan sameeyay marka lagama sheekeyn karo waxa kamid dalka in la kala jaraan waa jecel adna meel jeceshahay ilaahay laga cabsadaa kamida waxa kamida hadda mid kale aan rabaa inaan gabay aan u tiriyo aan leeyahay dayaxina nuur mala shamsaduna ma diirana cirka roobku kama doodoguna ma soo baxo xooluhu ma dararaan darab iyo baroor male dabayl baa dhacayso colaadiina ma aydamin waxaan uga dan leeyahay wadalkan dadkiisii ma mar hore la daayacay wuxuu soo dameer mala dhagaho ma daloolaan hadalku kama u daadago daacadiyo wadal male madaxweynaha inta dumarkii carruurta kulligu lagu dilaya wadalkan dadkiisii qormara la dayacay wuxuu soo dameer mala dhagaho ma daloolaan hadalku kama u daadago daacadiyo wadal male Soomaaliya dameer la dalshay jacayl keedina dumisay kulligeed sooxdaa dawarsiga ku noolay umadan danteed garan waxa dhaanta dunyada ayadoo way dareentaa dugaag cunay way ka sidaysaa dibadda iyo gudaha dib u wada heshiiyo kulli nabada doono dalka aan dhisna ka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh abwaana waxaad sheegtay in maartay heesa aad tirada hadda la qaado heesaas aad tirada yaa qaada abwaanka fanaanka qaada fanaanin badan baa qaada hadda heesa ilaahay laga cabto 7 qof qaada Cabdul Yuusuf ay ku jiraan nadfacal kulan iyo Bashir Ibrahim iyo dala tirin kara maahan heeskan kale oo dalka inaan la kala jaano waa jeclaan meel jecel Cabdul Yuusuf iyo nadfacal kulan qaada hees kala heesa badan oo qaada ninkii loo rajay Bashir Ibrahim waa jira ayaguna marka intaasaan rabaa inaan dalka dadkiisii baan raadinayay umadeena waa la hadlay dalkan dadkiisii baan raadinayay intaas raadinay heesaas aad sheegto hanuuniye oo ragga kamid yahay oo qaado abwaan wax ma nooga taaban kartaa ilaahay laga cabsada kamid ah hadii alla laga cabsado caafimaad mid dhaafleen hadii alla laga cabsado caaniyo nabad baa leeyahay hadii alla laga cabsado colaad iyo abar la waa hadii alla laga cabsado ciideena barwaaqo noqon hadii alla laga cabsado cusriga Yuusuf ku xigan hadii alla laga cabsado cilmiga diinta la baran hadii alla laga cabsado dugsiyada waa la wada camiray hadii alla laga cabsado subax waa lagu cilna hadii alla laga cabsado caruurta baar noqon hadii alla laga cabsado iimaanka lagu cayil hadii alla laga cabsado carabka ducada inuu dhaho hadii alla laga cabsado cirsiga waa laga aqbalay hadii alla laga cabsado janna ciribteena noqon hadii alla laga cabsado cadceeda qiyaamihiyo hadii alla laga cabsado cirida kulul bahar noqon hadii alla laga cabsado casabka nabada la digi hadii alla laga cabsado cirka roob nooga iimaan hadii alla laga cabsado caloosha la isu furin hadii alla laga cabsado cilada badan baa la weyn hadii alla laga cabsado midnimo caama la heli hadii alla laga cabsado aqalka fiican baa shaqeyn hadii alla laga cabsado cadawga waa laga adkaan ilaahay ha laga cabsado cadab hayna karsho abwaane taariikhdaadii kugu horeeyay ee gabay tirido gormayse aniga ilaa 10 sano anoo jiraan ta korlay qaadan gabi jiray gabaygan shacirmadana waa lagu dhashaa dadka Soomaaliyeedna waa ay garanayaan aniga Cabdi Salaad Qaari ahaan inta markaan uga baxo ujeedada aan leeyahay waxa weeye ummadda Soomaaliyeed banaanka jidana aan u sheego dalkooda inuu u baahan yahay iyo kuwa gudaha joogaba